خام كان دنيا كوما هرمرته manufacturing bay ku horumartaa ma jira bay leeyihiin wadan dunida hogaamiyay oo aan industrial ahayn wadan macdan soo qoda ama shidaal soo saara ama mining soo saaro horumarsan dunida ma jiro ninka soo walwalaaqun baa horumarsan kaas baa dunida ku shaqaysto xoolaheeda haysta kan laakiin ceelasho ay ku yaalina laga soo qodaa waa un ceelka laga la baxaa wixiisa qiimo ma samaynayo saawgeed ay wax isku dayeen Mareykan maanta galkaasi Mishaya Kaku wuxuu leeyahay science PhD waxa sameeyay Mareykan degani boqolkiiba konton dabad bay ku dhasheen Mareykan uu kuma dhalanin that means wixii aqli dunida jiray wuxuu isku dayay hadduu wax barasho ku keeni kari waa inuu lacag ku keeno oo dabeetana uu isagu wax ku baro Afrikadan madoowa taqaaniin waxay yiraahdaan 20,000 oo caalim oo ay leedahay bay sanad walba Yurub ka qabta dabeetana bay yiraahdeen khubaro la talisa si ay u soo kireystaan 4 bilyan oo lacag oo kale ku bixiya qiyaas inaad caalim soo saartaa marka hore mise bilyan buu ku joogaa markii la soo saarayna kuwaas qaatay sanad walba 20,000 bay ka qaataan khubaro ah oo Afrikaan madooba haddana hadhow baa la yiraahdaa ama jaamacaadka professor u baahan ama dawladda la taliyaal u baahan 4 bilyan oo lacag ah haddana lagu soo qaataa nin cado dib loogu soo kiraysta oo la keenaa si uu inoogu noqdo wacdada la talinaya meelaha ka jooga hadduu aqligu caynka markaa u fakaro Iraq markii la dumiyay Ingiriiska waxa ka jooga bay yiraahdaan 2 kun oo dhakhtar oo Iraaqi ah degan hadda nolosha hadday saa isu rogto muslimku agtooda aqoontu qiimo kuma leh aqoontu bilaash kuma soo baxdo wala maal gashada binaadamka la maal galiya si aqoon u soo baxdo Masar bay yiraahdaan GDP-geeda wax soo saarkeeda waxay تعليمك سرك بحساب 0.2 هل طبعا مليون لو غيبية لواهن الدوان معها برسنت ووان كاسو طبعا مليون لو سوق غيبية لواهن أي تعليم تكون بحساب إسرائيل وقتها الدجانينا almost 5% of its GDP أيكو بحساب بول كيبشان waddanku wuxuu dhaqaale soo saaro dhanba higher education ko qura la galiya baxtiga cilmiga in cilmi baaris la sameeyo markay dunida xagga tacliinta qiimeynaya مثلا United Nations التنمية البشرية 2001 كما تقريرka uu soo saaray waxay ku tilmaamayaan 5 qaybood bay dunida u qaybinayaan qayb waxay oranayaan waa qaada dunida dadka hogaamiya qaybna waxay oranayaan waa القيادة المحتملة dad laga yaabo inay dadka wax hogaamiye ku soo biiraan qaybna waxay yiraahdaan waa yara firfircoon yihiin qolana waxa la yiraahdaa waa hawaamista dacalada kuwa jooga qaarna tirada lagu madaro shanta qaybood bay dunida u qaybiyaan 18 hogaaminta dawlad muslimiin kuma jirto qaybta labaad oo ah qiyaada muhtamila ayu taqriirkaasi waaga Malaysia ku jirtay laga yaabaa imkana Turkigu inuu ku soo biiri karo waaga Malaysia oo kaliya kaga jirtay kuwan masaarida iyo intan muslimiinta u digdigahay kuwa nashadka firfircoonida yara qaba bay ku jiraan bay leeyihiin ee kuwa hogaanka iyo kuwa la filayo inay wax hogaamiyaan mustaqbalka dhow toona kuma jiraan taa macnaheedu waxa weeyaan qiimaha cilmigu waxa uu nala joogaa qiimaha cilmigu wuxuu joogaa galbeedka professorka ama ustaadka jooga wuxuu qaataa 50 professor oo muslim ah mushaharkood meelaha qaarkoodna 100 buu qaataa professorka caalam islaami jooga tacliinta uma hagar baxayo waayo waxa la siyaabo kuma filla shaqo labaad buu daydayaa habeenkiina waxa laga yaabaa inuu xafiis yar fadhiisto ama meel yar oo kale ka shaqeeyo wuxuu cilmi baadha wuxuu cunaa buu leeyahay yani وقف راد عين يسدون نولان لها
ciday u tahay bara'atul ikhtirac soo kordhisay 2001kii maalan dowladaha ugu weyn muslimiintan carbeed masar baa ka mid a soo maaha 2001 hal baa loo record gareeyay masar wax bara'atul ikhtiraca 2002giina mid 2003gii 12 2004kii ayaabay waxoogaa soo raanaadeen oo 87 loo qoray caalamulislaam oo dhan waktigaa 2004ka turkaa ugu badnayd oo 104 baraa ikhtirac baa loo qoray israa'iil oo keliya ma taqaanin intaa loo qoray 1222 shay bay soo saartay halkay masar midh ka soo saartay ama markay ugu badnayd 87 soo saartay israa'iil waxay soo saartay maxay miyay masaaridu israa'iil ka caqli yar yihiin mise way ka tira yar yihiin maya may qolana cilmiga qiimo u aragto ay maal gashatay qolana cilmigay gaajaysiiso professorkaaba baktinayaba wuxuu cunu daydeeya inuu wax soo saara ka kaalaya waxay dhahdaan israa'iil waxay ku jirtaa 15 dowladooda dunida ugu soo wax soo saar badan leh bara'atul ikhtirac ugu badan cilmi cusub register garaysta 5,000 israa'iiliyanaba qof baa wax soo saar leh marka tirakoob waxay soo saareen iyo tirada la soo ogaa cilmiga keeneen 5,000 qof kastaba qof baa wax soo saar leh maraykankaas ka ballaaran iyadana 6,007 qofba mid baa leh laakiin de xagga tiradu kaga badan yahay maadaama xagga tirada kaga badan yahay dee wuxuu soo saaraa 41,870 shay oo cusub baa baateenkeeda sanad qura helay jabaan 19,982 baateen ayaa hal sanad qorteen inay soo saareen oo ashyaa cusuba laakiin de halka israa'iil 5,000 qof wax soo saara leeday ama jabaanisku 6,300 qof kasta qof wax soo saara leeyahay masar waxay yidhaahdeen waa 900,000 oo qof baa mid leh waa 1 milyan qolana 5,000 baa wax soo saar leh qolana 1 milyan baa leh oo dhadhow tirakoobyada waxaan idinku soo naqliyey inaad suurad ka qaadataan aqoonta muslimka ee cilmigii halkay taagantay inay dib u sameeyaan waa wax aad u fudud laakiin waxay u baahan tahay caalamulislaami dhul khaam u degan yahay oo bisil shidaal iyo macdan iyo wax walba leh dhallin buu haystaa da-yar oo dadka ku nool waxaa laga yaabaa 70% inay 30 jir ka yaryihiin dad wax baran kara diin buu haystaa waxbarashada ammaanaysa asaasiyeedkeedana tilmaamaysa idan wax waa la baran karaa waxaa la leeyahay bulshadii cilmigu uu qiimaha la lahaa iyo hoggaankii qiimaha u arkayay maanta dowladahan yaryar aynu leenahay tirada badan leh budgetka marka la dejinayo intaad u malaynaysa in waxbarasho loo qoondeeyo inteese wax kale loo qoondeeya yani waxa ay tilmaamaysaa un shaygan innaga qiimayntu agteenna ku leeyihin markay dowladaheennu waxba nafle ay u ogolaan waayeen ayay waxbarashadeennii oo dhammi private noqotay markaasay intay sii dhaaftay dee imka waxay maraysaa xataa qur-aan ma baran karti hadda aad lacag haysanay socaynkaa ma aha yani wax bilaashiba ma jiraan sababtuna waa maxay system aqoonta qiimaynayaan jirin oo maalgelinaya iyo bulsho aqoonta qiimaynaysa oo maalgelinaysaan jirin caalamulislaamigaa la tilmaamayo 130 caalime dunida ugu weyn inay iyagu lahaayeen 120 ka mida dowladdu may maalgelin jireen bulshadaaba maalgelin jirtay awqaaf bay waxaasoo dhammi ku socdeen dowladduna culamada way karaamayn jirtay dadka aqoon-yahanka way karaamayn jirtay jaways bay siin jirtay waxbay dad nool bay hayeen waxaan uga dan leeyahay markaa haddaad maqasho dunaa horu martay dhidid bay ku horu mareen iyo waxbarasho iyo wax soo saar bilaash kumay horu mareen cid intay iska seexatay badhaadhay oo horu martay ma jirto cid aqoon adeegsatay ayaa horu martay innagana waxba inagama xigaan inaynu horu marno waxba inagama xigaan go-aankeenna inaga xigaan inaynu shacab iyo dowlad iyo qiyaadaba
inaynu yeelano go-aan ah inaynu aqoontu inay qiimo tahay aragno cilmigu inuu wax yahay innaga cilmiga waxuma aragno haddii marka aynu rabno horumar waxaan leenahay cilmigu ku diineed oo qofka bini aadamkaa qof nool ka dhigaya iyo ku adduunyo oo qofka qof noloshiisa difaacan kariya dalkiisa iyo dadnimadiisa ka dhigaya waxay ku xidhan tahay sidaynu waxbarashada u qiimayno nolosha adduune horu martayna waxbarashay ku horu martay alaab la soo iibsadana laguma horumaro daara dhaadheer oo la dhiso oo inta gaal la keeno u daar dheer kuu dhisayo waxaa laguma horumaro dad kolba carabi tiraahdo daarta dunida ka dheer ugu dheer baanu dhisaynaa iyaga iyo daarahoodaba dad baa isku leh iyaga iyo daarahooda iyo shidaalkoodaba dad baa isku leh waxaa la yaabantiin maxaa farta loogu yeedhaya maxaa waxaan laynoo leeyahay maxaa caynka dee waa laynaga xoog batay waynu seexannay de haddaad seexatana ogolow soomaalida maahmahadeedu maxay ahayd miskiin baa miska la fuulo lama yidhahdeen adduunka cid isuma naxdo naxariisi ma jirtee waa ninkii wax iska dhiciya unbaa dad noqda soomaaliya way jabtay maxaa dunida noogu soo horiyi wey war waa lagu sii korayaa cid ku soo kicinaysaa ma jirto mid gaal professor jooga Cambridge University oo kuway ka dambeeyaan ayaa nin sheekho Soomaaliyeed oo ardada meesha wax ka barataaba wuxuu yidhi waxaan weydiiyey su'aal ah war waddankaygi waa kan degi waayo idinkuun baa ku jira maxaa naga rabtaa intuu dib u jiifsaday buu cabbaar fakeray ayuu wuxuu yidhi wixii laydinla rabaa weli laydin yeelsiin maa laydin gelgelaya intaa haa ka odhanaysaa wixii laydinka rabay baan weli laydin yeelsiin buu yidhi tii baydan weli aqbalin marka inta taa ka gaadhaysaan waa ahaanaysaan buu leeyahay in caynkaa laydin wado calaa kulli xaal warkaygu wuxuu ku kooban yahay aqooni haddaad aakhiro doonaysana facalayka bilcilm haddaad adduun doonaysana facalayka bilcilm وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك في الأستاذ محمد إسماعيل هارون الله يبارك سبحانه وتعالى علميس الله وبركاته إنك الله ينفعه waxaan u geli doonaa insha Allah qaybtii su'aalaha hadii la hadmo su'aalaha waxaan ka cudur daaranaynaa walaalaha su'aalaha soo gudbiyeen aad bay u fara badan yihiin in badan oo ka mid yihiin waqtigu inama saamaxayo inaynu culimada horgeyno in ka midan yihiin waxaa laga yaabaa dadku inay soo qoraan su'aalo ah laba qof iyo wixii ka badan oo markaas laga yaabo inay u baahanayso garsoorid iyo wax la mid ah su'aalaha caynkaas oo kala ahina ma suurtagelin aan culimada u dhiibno haddii la hidmo maadaama waqtigu dib u dheeraada habeenkiina caawa laga bilaabo insha Allah su'aaluhu way kalmaan doonaan haddii la hidmo walaalaha marka raaligelin badan baan insha Allah tacaala ka bixinaynaa arrinkaas iyagoo rabay su'aalaha in laga wada jawaabo laakiin insha Allah cilmigu soo tagayay intaas culimada ay ilaahay idinkiis noqotay in laga jawaabo ayeen ilaahay idinkiis dhageysan doonaa haddii la hidmo Sheekh Yuusuf Maxamed Ali baan caawa soo dhaweynaya su'aalaha qaybtan haddii la hidmo وإنه دالين دون إن شاء الله سؤال وشكرا شاقة مسيس كويس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إن شاء الله تعالى سؤالها waxaa inooga jawaabi doona haddii ilaahay idmo sheekh cabdinaasir xaaji axmed iyo sheekh daahir oo cabdi in sha allahu tacaala labadaas sheekh baa caawa inooga jawaabi doona su-aalaha haddii ilaahay idmo waan kuu banneeyay gudbaysaa sheekh iska fadhi sheekh iska fadhi iska fadhi sheekh iska fadhi laba kursiga ya maya sheekh iska fadhi caadi way haystaan dhulka markan isku banaa sheekh soo gudub sheekh عشان بورتا ما سؤال كورتن يدور صار بالباشا بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شو جوه الرئيس وح إسكاله هو ويدينا يا الشيخ عبد الناصر بن ويدينا يا الشيخ سؤال شو هيقول هذا هاي الشيخ وحن كشقيا شركة شيرنا وان كل هاي مشاهرنا وان كقاطع هذا مشاهر كاسي حكم كيسو محون غنيا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله شركة الشركة كتهاي واد لعقتها أي كل شقين يصاد وحكول هذا هاي وأنت هذا كم تهاي مشاركة ما قاعدين كرتيد سيد جمهور العلماء قبان أحكامت الشركة دون هذه الجورالة وحويان مركب فائدة صواب بحضه إن هلك بقول لي أما نسبة مئوية وحيد هذان نوالي بحولها وحكولها halkaa laga qaybsado ayaa la doonayaa waxay ka hadlaan haddii uu dee shaqaynayo ma loo gelin karaa dhowto shaqadiisii muqaabilkeedii qiimayn nisbe loo geliyo taasaa baa ka taagan yahay laakiin iyasa saca way bannaan tahay in mar hadduu shaqeeyey arbaaxda iyo faa'iidada soo baxaysa إن بقول لي لو قدره وحي مركا يوكو الشيان والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير الجزاء. الشيخ سائل كان وحولي هاي وحاسكال السؤال شان الشيخ ظاهر إن شاء الله تعالى. الشيخ سائل كان وحولي هاي waayahay sheekh cabdinaasir baan weydiinayaa su-aasha xigtana oo labaad sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan waxaa ii jooga laba carruur ah oo uu aabbahood dhintay loomana wanqalin haddaba hantida uu aabbahood uga tegay ma uga wanqali karaa jawaabtu waa mada ninkaa dhintay odaga ah carruurtu ka tegey dhaxalka ay u leeyihiin agoontu leedahay walqad uga samayn maysid wanqaliya walqaliya soomaalidu dee nimba wax isugu yidhahdaaye walqal baa noogu dhahnaa marka waxa weeyaan walqashu asal ahaanna waa shay sunno ah xilkeeduna wuxuu saaran yahay aabbaha ayaa laga rabaa inuu awlaadiis ka walqalo waana sunne su-aasha waxaa ka muuqata odaygiina dhibayba ilaa intuu ilmuhu ka qaangaadhayo isaga ayaa xilku saaran yahay inuu ilmihiisa ka wanqalo ama ka walqalo hadduu dhintay carruurta laga taaban maayo xoolahooda laakiin hadhow carruurtani markay qaangaadhaan fuqahadu waxay sheegeen inay isaga bannaan tahay isagu inuu iska walqalo wallahu subxana wa tacaala جزاك الله خير الجزاء. الشيخ سائل كان وحولي هاي وسؤال سدحات sheekh dhaqanka soomaalida qaar waxaa ka mid ah in haddii nin gabar si kas ah uu u dilo aan loo qisaasin ee diyo uun la siiyo arrinkaasi maxay shareecadu ka qabtaa arrinkaasi ma bannaana oo iska caado soomaali dhaqan aynu iska wadanno weeye oo sharci khilaafsan qofka dumara haddii ninku dilo
isagana waa loo dilayaa hadday iyadu disho iyana waa loo dilayaa imaamu shaafici kitaabkiisa al-um la yidhaahdo masaladaa markuu soo guurinaya wuxuu leeyahay cid aan ogahdo arrintaa khilaafsan in dhiigga labka iyo dhediga muslimka dhiiggoodu isku mid yahay oo ninku hadduu gabadha dilo loo dilayo gabadhoo ninkay daysho loo dilayo wax khilaafa oo aan hayaa ma jira buu sheekhu leeyahay marka arrintaas weli wuxuu ku sii darayaa marka ninkii la dilo la odhan maayo qofkii dumar ahayd magteedu 50 bay ahaydee waxoogaa sarifka inta baaqiga ah 50kii ha la keeno taasina ma jirta buu yidhi wax hore loo kala qaadayaana ma jiro waa nafsu binafsi waa qof loo dilay halkaasay arrintu ku dhammaatay laakiin de waxaa iskale xilka oo loo dhiibayaa dadkii gabadhan la dilay ciddii weliga u ahayd baa xilkeeda leh oo qisaastiina way qaadan karaan maxaan ku dhahay wax la yidhaahdo cafis bay qaadan karaan mag bay ku beddelan karaan waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyi sulطaanan falaa yusrif fi lqatli baa la yidhi subxaana wa tacaala wallahu subxana wa tacaala su-aasha afraad ee xigta waxay leedahay sheekh laaluushku duruuf ma ku bannaanaan karaa sida inaad xaq aad leedahay ku dhacsanayso haddii aadan bixininna aad xaqaaga waayayso way bannaantahay haddii xoolahaagii laga haysto xoolahaagii gacan lagaaga dhigay oo waddo kaloo aad ku soo dhacsata aanay jirin waxaad bixinaysana aanay u beegtoomin waxa kaa maqan way bannaan tahay inaad soo furfurato laakiin qofka qaadanaya laaluush ku tahaye adiga xaggaaga dee laaluush lama yidhaahde waa nin wixiisii la soo baxaya adiga xaggaaga wax dembiya ma leh xoolahaagii baa laga haystaa hataa waxay fuqaadu ka hadlaan haddaa waad ka baqaysa xitaa in lagaa qaado qola kugu soo maqiiqaan aad warga jeesta aad iska jeediso kuwa raba inay wax kaa qaadaan bal xitaa waxay ku daraan hadduu jiro waxaa jira niman gabayaado masiibo ah oo afkumaal ah oo le nin oday ahoo sharaf laba u ahaado ninkii in gabay lagu tiriyo baktiga lagaa dhigo xoogaa waad iska siin karta kaa qudhiis kaa ku gabyayee raba inuu suuqa kaa saaro ile gabagu waa moogtay waa arrinaalis iska qaarijinaysa wallahu subxana wa tacaala jazaak allahu khayr aljazaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaa beryahan dalka ku soo batay xarumo loo yaqaano cilaaj oo dadka bukaanka ah la geeyo iyadoo qaarkood la sheegayo inay jinka la shaqaystaan sixirna adeegsadaan haddaba ma bannaan tahay in daawo iyo cilaaj loo raadsado xarumahaas xarumo gaar oo anigu aan aqaano oo yani arrimahan laga sheegayo dee hayaanu garan maayo laakiin kelmad kooban inaan ka nidhaahno mawduucan isaga ahun baan dawaabidda ama qawaacidda sharciga ah in si loo ilaalin karo ama sida laga doonayo baan wax yar ka taabanaynaa marka hore qof waxbuu dawaynayaa qofna waa la dawaynayaa waxna waa lagu dawaynayaa arkaanteedu waa intaa saddexdaa qodob shareecada islaamku waa lagu ijmaacsan yahay qofka in la daweeyo oo waxa lagu daweynaya marka laga hadlaya ruqyada dhakhaatiirta hadda waa iska ka hadlimayso laakiin dadka qofka daweynaya cilaajinaya in diinta lagu cilaajiyo alxaafid ibn xajar kitaabkiisa fatxulbaari oo kale wuxuu idhahdaa ruqyadaas shuruuddeeda waa inay luqada carabiga tahay waa inay adkaartii sharciga ay tahay waa inaanu qofkani caqiidaysnayn ama ka akhriyay ama ka lagu akhriyayaba in erayadan lagu akhriyay inay yihiin waxa daweynaya ee iyagu inay sabab yihiin inuu caqiidaysto laakiin allah inuu yahay allah wax daweey ilahay inuu yahay subxana wa tacaala qofkan wax daweynaya waa in diintiisa lagu kalsoon yahay qof ammaano leh oo ictiqaadkiisu wacan yahay oo ummadda danteeda ilaalinaya oo daacad u ah waa inuu qofkaasi qof dee culimmada maaragtay ay taskiyinayso la garanay inuu yahay culimmadiisa ku xidhan oo la garanayo waxaa kaloo meesha jiraysa waxyaabaha dhacaya mararka qaar qofka la daweynaya mariidka ah siga qudhiisu hadday dumar tahay waa inaanu qofkani markuu daweynayo waa inay xijaaban tahay oo xushmadii sharciga waa ku muuqdaa khalwo mukhaalafaadkii sharciga meesha waa inay ka baxaan khalwo aanay jirin
la gooy noqosho wixii sharcigu khalwo u yaqaano waxa la yidhaahdo jidhkeeda aanu taaban waa qof ajnabi iyo uma bannaana inaad ka taataabato waxbaan cilaajinay intaad tidhaahdo uma bannaana jidhkeeda inuu taabto wixii mukhaalafaad ah ee sharcigu kuu diidiy o dhan leedahay qur-aanka mararka qaarkood waxaad maqlaysaa waxyaaba duuduuban ama kelimaad yaroo lagu celcelinayo oo aayad maaragtay wax ka mid ah oo si qaldan loo akhriyayo waad arkaysaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dadku inay si jamaaciyo fara badan mikrofoon weyn loogu rakibo oo dhici karta mararka qaarkood mikrofoonkaas inuu waxyeeleeyo sidaa dee loogu furayo qofka fardi loo daweeyo oo qofkii la qaabilo oo wax lagu akhriyo qur-aankiiyo siyaabahaas ayaa loo baahaya waa in la iska ilaaliya wixii mukhaalafaad sharciya oo dhan laga ilaaliya mana bannaana sixirka sixir lagu furo ma bannaana qof sixir la shaqaysanaya haddii uu jiro in loo tagaa ma bannaana mararka qaarkood in la aamino waxaan hadlaya dee jinku waa galaa qofka wuuna hadlayaa mararka qaarkood waa lagu talax tegayaado isagiiba hogaaminayo oo waxaasaan sameeyado halkaasaa sixir ku jiraado markaasaa diradoo lala safraya la raacayaado adiba ku kacaysayba adibu ku wataa maxaad waxdawaysaa ya rumaysatayba ee beenawaaska meesha ku jira cadowgan duulaanka ee qofka dumara galay ee aad u baahanay inaad ka dawayso adiga waa kugu shaqaysanaya adibu ku kacaysay maxaad waxdawaysaa xaggee ku jira halkaa safar dheer baa loo gelaya maxaa dila gaari in la raaco magaalo heblaayo guri hoosti halka waxaas inaad wax sax maaha marka in dadkana la baro inay ilaahay ku xidhnaadaan oo tala saarashada ilaahay la baro addoonkan ilaahay baa caafimaadka haya sixirka iyo jinka iyo isha iyo waxaasoo dhan wax jira waxaana ku filan ilaahay baa kaaga filan adkaarta iyo ducooyinka ilaahay tala saarashada wax badan shukuuk badan baa marka qaarkood shakiga ayaa wuxuu keenay isaga qudhiisu qofka inuu aad maaragtay uu u nuglaado in sidii doona laga yeeli karo marka inahaasaan ku koobaya wallahu subxana wa tacaala جزاه الله خير الجزاء سؤال شحكته وحنو ورجينا ويديننا إن شاء الله تعالى شيخ ظاهر أو عبدي سؤال سائلك سوقري وحليه هاي شيخ صون كتجي لبضي دي والد حلي هراء تردي سنة عن الجرانين قاب كي وجدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وصحبه صونكو أركانتا إسلامكو كميدي هاي مركز سيدا درتي أعذار يوحي اللمدة بالوغتي كرايدنا وحي لدي حدود مركا نبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس حكم إذا من مات وعليه صوم فليصم وليه وليه سواك صوم مركا waa صومي لك سؤاشا waxa ku jira waalidkii waa dhintay intuu soomka uu ka tagayna garan mayno intuu ahaa waa uu la qadari waana la ijtihaadi ihsaanna waa loo sameeyni intii la awoodo waa laga soomi inta kale kolka la qadaro la soomi kari waayana sida ay madu yiraahdeen waxa laga bixinayaa فيديو oo waxa laga bixinayaa maalintiiba miskiin baa la quudin saas la sameeyay wabillahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخ سائلك كحيغا وحليهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدبان السلام يا علماء شرفت له شيخ صلاة قصرقة مركي أن دبلغو تصالة أهان ظهر كيبان عصر كأوكياني تيبان تكشدي ظهر مرينيا مع عصرك مثل ظهرك نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث سفر كقصة سنيد وخاصة حجة الوداع صلاة الظهر يعصر سكاني مركا ظهر كنت كذي بآذان يو إقامتين عصر كان وكحج السيي كاسوحها جمع تقديم مغرب كي عشين واسلا دونتي جمع تأخير بوها وحال هور مارتي هور مريا مغرب هور مريا صلوات الله والسلام عليه
cishayna waa ku xijisiiyey wahaakadaa safaradana saas weeye ama salaada subaxa cishahana lalama kulmiyo mid lama soo hordhigo midna dib looba rido salaada subaxa iyo duhurkana la isuma geeyo wahaakadaa saasaa loo galayaa hadday cadaar timaado oo roob badani intuu do-o dadku ayn soo noqon karaynin sida nebigaba sala allahu calayh wasalam uu amray asxaabta qaarkood salaada waxaan tukanaynaa maqhribka cishahana waynu ku xijisiinaynaa oo waxaa la yidhaha jamcu taqdiim saasaan samaynayna wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayr aljazaa sheekh saa'ilka ku xiga wuxuu leeyahay waxaan ka shaqaystaa qaad haddaba hantida aan ka kasbado ma ii xalaal baa mise waa xaaraam guriga aan ka dhistana ma ku tukan karaa guri aan lacag qaad ka dhistay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadka mu'miniinta waxaa la amray in xalaasha aan cunno horta waxaa ka horeeya sheekhuna hadda muxaadarada waa ku jirtay in la barto wixii ilaahay kaa xaaraameeyey wixii ilaahay kuu xalaaleeyey baalka qaadka la yidhaahna soomaalida dadka galbeedka iyo meelaha jira oo qutul awliya ka dhiga kuwa warkama hayo inta kale way og yihiin baalkan inuu bannaanayn uu khamri yahay marka saa darteed halka haddaan soo koobo wakhtiga oo dheeraaday darteed waxa weeye waxaan gabadhaa kula talinaynaa qaabkaad uga bixi lahayd yeel hadday suurowdo inaad dhammaan guriga iyo waxaad haysato ka bixi karto ka bax guriga ku wareeji maxaan idhaahdaaye dadka muxsiniinta ah oo ka shaqeeya awqaafta iyo jidadka la samaynaya iyo ceelasha la qodaya iyo masaakiinta iyo dadka ha lagu wareejiyo adigu hadda waxa weeye ajri ka raadin maysa waxaa ka raadinaysaa saad ilaahay uga badbaado toobadna keen oo ilaahay xaggiisa u soo noqo haddaadan waxba haysanin oo carruurtii iyo reerkii waxay cunaan aan jirin wixii aad cuni karta aad cunayso kala hadh waa lagu ogol yahay a'immada qaarna waxay yidhaahdeen waman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantahaa falahu maa salaf haddii qofku xaaraamta ka shaqaysanayo uu xaaraamtaa garanayn jahli ka hayo muddo dheer ka soo shaqaysanayay naska marka loo sheego sidii ribada ku soo arooray siyaaqa markaa ha ka joogsado wixii hore miyaa xalaal buu yahay laakiin intaan ogahay qof soomaaliya rag iyo haween oo qaadku inuu bannaanayn aan ogayn ma jiro wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayr aljazaa culimmadu aad bay u mahadsan yihiin sida ay wakhtiga inoogu soo koobayaan jawaabta saa'ilka ku xiga sheekh daahir wuxuu leeyahay sheekh xirsiga ama qardhaasta qaar waxaa lagu qoraa qur'aan marka sidee xaaraam ku noqonayaa haddii uu qur'aan ku qoran yahay innagu dad muslimiinaynu nahay taabiciin baan nahay waxaynu raacaynaa nebigii sala allahu alay wasalam iyo sharcigii islaamka baashanna asalkeedu waxay ahayd shaqo ay samayn jireen dadkii jaahiliyadii qabla alislaam waana arrintu sheekhu hadda ka warramayey oo ruqyada iyo saas ku saabsan marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa shay hadduu inaga mamnuuco sharcigu badiil buu keenaa qardhaasa marka waa ictiqaad kharriban weeye waxaa qofka ku jira inuu jinka iyo isha iyo sixirka iyo waxyaalahaas madiidada iyo wixii la halmaala inay dawo ka tahay waana soo noqotay mar bay waxoogaa gabatay haddaa aad bay u soo noqotay dad badan baa jinta ku wata dad baa ku wata wareegga oo guntaday oo u sameeya soon qaar baa bawdada ku xidha oo dad kale ka qariya waxaasi ma bannaana waa khuraafaad lama ogolo laakiin waxaa ilaahay subxaana wa taala inoo sharciyeeyey mucaawadataynka iyo qulhuwallaha iyo aakhiru suurat albaqara oo labada aayadoo ugu dambeeya ah iyo maxaan idhaahdaa faatixada iyo adkaartii nebiga ka sugnaatay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inaad isku tuftaan taxliil laynoogu tufo oo isku dawaysaan oo ilaahay baridaan subxaana wa tacaala ilaahay baa wax badbaadiya ilaahay baa wax ilaaliya ilaahay baa weliya ilaahay inaad kaalmaysataan
oo halka hadda wax lagu qorqoray waxaynaysan ama qur'aanka ta lagu qoray aimada qaar baa yidhi laakiin wax daliil u haystaan ma jiro sida qowlka saxiixa oo aimadu u badan yihiin ama qur'aan ha ku qornaato ama warqada wax kale khuraafaad oo la garanaynin ha ku qornaato qardhaastu ma banaana sharciyan marka saadarteed dadka waxaan ugu yeelaynaa waa khuraafaad ka fogaada oo waxyaalaha hadda sheekhu ku warramayo dadka dib u riday waa qardhaas la qorayay iyo waxaan ku dhahdaa qubuuro la galayay iyo maxaa xoolo la kaxeynayo qubuuro lagu qalayay iyo awliyo la baryayay iyo waxaas waa wax dadka dib u riday weeye oo waqtigoogina burburiyey cilmigii sharciga ahaa oo khayrka aakhiriya ka adduunka ugu yeedhayana ay dib uga dhaceen wabillahi tawfiiq sheekh saa'ilka ku xiga su-aashiisu waxay tahay haddii aan qof wax ka xado oo aan damco inaan xaqiisa u gudo dabadeedna aan isagii waayo ma u sadaqayn karaa horta ninka waxa ugu yeedhaynaa arrinta aad ku kacday waa arrin foolxun waa tuugna waa dadku waxay qofkay ugu necab yihiin shayga ugu necab yihiin waa tuugo afrikanka waa la dilaa gacan baa loola tagaa nafta lagaba qaadaaba laakiin sharcigeennu in la dilo ma ogolo wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ilaahay saasuu yidhi gacmahoogaa la jarayaa sharcigaa ka soo dejiyey sharci hadda taagan oo axkaamii ma jiro niyo waxaad ku dhacday arrin aan fiicnayn tuug baad noqotay toobadkeen horta oo ilaahay xaggiisa u noqo wixii aad qaaday innaga markaan darsiga akhriya ceel hindinin baa wuxuu noo ila soo xidhiidhay wuxuu yidhi dhar badan baan magaalada ka xaday magaaladoo dhan habeenkaan xadi jiray muddo dheer baan dharka xadi jiray dhar badan baan hayaa meel alla la meelangeeyana garan maayo guryihiiba iskaga darsamay qaarna waan aqaanoo haddaan dharka u geeyo way dilayaan maxaan sameeyaa marka hadda ninkaas xoolihii haddaad hayso horta towbadkeen wixii aad haysana dadkii lahaa haddaad garanayso u celi oo ilaahay uga baq oo sujuudda ku ooy oo towbadkeen oo ha u noqonin oo islaamka baro haddaad garan weydo wax leh ama dadkii ay dhinteenba wixiina aad hayso masaalixda ummadda ku bixi jidadka iyo maxaan idhaha dadka masaakiinta gaajaysan iyo dadka iyo qaxootiga iyo dadka isbitallada iyo meelaha lagu dawaynayo meelaha ku bixi maalka marka mawdku ayuuna kuugu imanin adigoo maaragtay maalkii haya waxa weeye dayn yani waxa weeye tuuga ku timid weeye oo korka kaa saaran markaa ka taxallul sidaas samee insha allah billahi tawfiiq jazaaka allahu khayr aljaza sheekh waqtiga aad buu u yaryahay su-aaluhuna waa badan yihiin marka caawa insha allahu tacaala intaas baan ku soo koobaynaa waxaa jira walaal warqad soo qoray axmed cabdisamatar casariye waxaa xanuunsanaya injineer cabdicasiis saciid samatar surcad oo dhowr beri kooma ku jira marka walaalaha guud ahaan waxaa laga codsanayaa walaalkaas inay u duceeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunkaas ka qaado miirkiisana u soo celiyo in sha allahu tacaala waxaan siinayaa kelmadda ugu dambaysa jalsadeennaan caawo oo duca ah islaan ciise ayaan siinayaa oo noo ducayn doona insha allahu tacaala jalsada بسم الله بسم الله بسم الله waxaan dadkan islaamka madashan qaymaha leh makaan ilaahay ee jooga ku salaamaya salaamta islaamka
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالي حاجة الله ينوصو بيو مراد كينا الله سهل مصايبتنا الله ينكيرانو دادك إسلامك أما أهلك ووقتي قودي إنه هوري إن أي واحد كؤادن إن يراهدانين إن أنا أي بارتو تهينا إنه قادنه الله إنه أنفعه أيقنا الله كعب المريو وحو أجبه وحلينا ليه إننا وحو أجبنا كواه إنه قادنه هدنا وواحد وقتها مكوشيغا وواحد وقتها مكوشيغا انتينا نعاو مدشان جوجته iyo inta magaalada joogtaba waqtiga lagu jiro waxa uu ku dameynayo iyo meesha loo socdo waxa ay tahay iyo waxa inaga ina ku aadan qof waliba waa yaqaan matal haddaan meel yar ka soo qaato subax waageedu bariyo ama habeen gabalkiisu dhaco intaasoo qof oo ehela islaam ah oo walaal ah oo waarid ah oo rixim ah baynu aasnaa waa ka soo tagnaa waxaynu ognahay intaa mawdka dilaya inuusan inaga ina daynin ee waqti ka mid ah markii dhinac loo eegana aan fogeyn inuu ina haleelayo haddana markii dhinaca kale laga fiirsho waxaa moodaa meeshaas magoolkeennii aynu geynayno oo uga soo tegayno inayna ka maqan tahay inaynu tegi doonno waxaan leeyahay marka xooluhu ragga geela yaqaani hasha aan madida ahayn bay hortii lisaan hadhowna madiday ku dul lisaan korlis baa la yidhaahdaa tan horena gundhig baa la yidhaahdaa gundhigu waa caano waxa ka imaanaya madida waxa ka imaanayana waa caano innagu markay inta aynu qabno waa gundhiga waa aynu ka warqabnaa inaynu dhimanayno waana aynu ka warqabnaa in layna xisaabayo inta wadaadadu ina leeyihiin korliski wey ha loo diyaar garoobo intaan muslimiinta ah oo meesha joogtahay iyo inta kale oo naga maqan oo na maqlaysaba wadaadadu waxaynu ognahay inoo sheegeen waxaynaan ogeyn inooma sheegin mahmaahan hal kelmada ka soo qaadanayaa waxay ahayd badbaado ilaah ma sii ahaato xabad baa ku dhacday roonaa tiibi baa ku dhacday roonaa baabuur baa la gadoomay roonaa aakhir ilaah waa ku dilayaa intaa ilaahay kaa badbaadiyey baa aakhir ku dilay marna badbaadadaadu sii ahaan mayso haddaynu marka tubku joognahay matal garoowe markii la yidhaahdo waxaa suuraa dhowr boqol oo qof inay maalintii ku dhimato ee ku dhalato 24 saacna 10 qof 30 qof 40 qof ku dhinto intee isu jiraan wax badan baa u dhaxaysa yaa badan waxa badan inta dhalanaysa waxa yar inta dhimanaysa haddana dhimashadaas aynu u dhamaanaynaa tan marka dambe guulaysanaysa oo hawsheedii gabagaboobayso waa dhimashada weyn
dhalashadii meel ay aaday lama yaqaan waxaan leh markaa innana aan qaadanno ilaahna ha inoo ku anfaco wadaadadana waxa inoo sheegeen allaha ka abaalmariyo masaakiinta dhibban oo ama baahi u dhibban ama bugta u dhibbanna ilaahay ha ka daweeyo wixii cudur qaba wixii baahi qabana ilaahay ha ka risiqo muslimku meeluu joogana ilaahay maslaxad khayr qabta ha dhex dhigo kuwa haatan jiradooda muslimiinta inay u duceeyaan madasha laynoo ka sheegay iyo kuwa kale oo aan warkoodu ina soo gaarin oo aynu ognahay inay bukaaniin ama dad badan oo islaamiga ay dhib qabaaniin ilaahay isagaa qaniya ee qof walba cusriga haya yusrana ugu bedelo wixii ajashoodu ay baaqi tahay oo wax u harsan yihiin inay sii noolaadaan ilaahay dawac ha siiyo isagaa dawo leh ilaahay inta dhimatay ha u naxariisto inta bugtahoo aan ajashoodu gabaabsiga tahay oo waxa haya aan ka kacayna ilaahay naxariistii janno ha siiyo adduun joog iyo aakhira joogba qaatumadeenna khayr allaha ku qatimo islaamku meelu joogaba qof walibana muraadka uu leeyahay oo aan macsi iyo dhumus lahayn mukabil allah uga dhigo masaa'ibaha adduunka ka dhacayana allahayna ka nabadgeliyo xakaarka muslimiinta haysta na allaha ka dulqaado khaasan soomaaliya waxayna haysta allahayna ka dulqaado waxaa halkaasina gaarsiiyey waxaan qabaa waxaynu inagu jisaysanay weeye ee qof aan dulmi gelin ilaahay ma dulmiyo xaqa allahayna waafajiyo adduunka iyo aakhiradaba xaruntaan aynu caawa joognana mid barakaysan oo inta soo ayiidayna ilaahay ku anfaco inta islaamkaas u hiilinaysa oo xaqa u sheegaysana ilaahay ka abaalmariyo allaha inuu ka dhigo culummadana waxaan leeyahay war noo badiya madalahan oo kale innaguna waxaan layna ka rabaayo naftiin iyo naftaydaba kula dardaarmayaa khaas ahaanna aynu u hoggaansanno waxa danteennu ku jiro caam ahaanna madalahan oo kale iyo makaamkan oo kale aynu badsanno xaal iyo xaajana allah inoo suubiyo kulankeenana kulan khayr allaha ka dhigo ka dabatageenna mid khayr ilaah baa hiile allaha inoo hiiliyo naxariista isagaa leh allaha inoo naxariisto gargaar isagaa leh allaha inoo gargaaro isagaa hiile allaha inoo hiiliyo isagaa deeq leh allaha inoo deeqo dembi dhaaf isagaa leh allaha inoo dembi dhaafo magantiis ilaah baa baridee magantiisa allahayna ka yeelo martidiisaa dheragtee martidiisa allahayna ka yeelo adduun iyo aakhiraba qaatuma khayr maca aliimaan qaatumadeenna khayr allaha ku qatimo qaatumadeenna khayr allaha ku qatimo adduunka filnaba aakhiran wa filjanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
Mm-hmm.